يا والدة كان شفتي ضربوا waa lacagtaas muddaduna waa muddo kooban waxaan la haysto waa muddo kooban annaga xaggeena inaan 5 beri uga soo dhammaan karno aan isku dayno haddii alla yiraahdo oo gabadhii si aanay nooga sii rafaadin oo hadday si kale ay nooga sii noqonin arrintu marka aan ku dadaalna arrintaas raafiqi yaquubow adduunkana rag baa wax walba maareeya arrintaas marka inaan maareyno sida ugu dhaqsiga badan aan nooga tillaabsano insha allahu ilaahayna aan u tala saarano allaha noo fududeeyaan leenahay mar kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan qurbo joog iyo qaran joog raafiqi yaquub dadka ku howlan mar walba oo dhib dhaco in ay ka qayb qaataan fikir iyo dhaqaale iyo waqti intaba ku geliyaan waxaan leeyahay ajri xasanaad allah idinka siiyo odayaasha dhaqanka oo soo hadlay ugaasku hogaaminaya sidoo kale aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan aad u fiican weliba si qurux badnaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka marka dhammaantiin waa islaamay waxaan u soo galay inaan xoojiyo warkii soo yeeray oo ka soo yeeray xildhibaanka iyo doctor xukun iyo qaran joog oo ay soo qoondeen lacagtii magga muqaqafada ahayd muqallafo iyo maqallada mi ahayd muqalladii muqaqafa lacagta alla ku saartaheed oo gabadhii lagu haystay magafo ay ka hadleen ayaan daba taagnahay lacagtaas waa qaadanay waa qaadasho reer Canada wixii lagu soo qoray waa diyaar wayna bixinayaan insha Allah ilaahay idinkiis waa aragnay shaxda la soo jeexay lacagaha lagu soo qoray waa aragnay waa akhrisanay waa fiirinay Canada jooga aniga waa aadan cabdille 5,000 lagu soo qoray Canada ilaahay asaga subxaana qaadir ah kolley waxa la wixii la soo qoray haddaan nahay reer Canada waa qaadanay garabkaan u siloonay dhabarkaan u ridanay ilaahayna ha naga soo aruuriyo intaan kadib kolley walaalaha muxuu ahay ku jiro groupkan ee soo xilqaamay ee u damqaday walaashood u haysto magafaha u haysto ee dhibaataysan waxaan leeyahay dadaalkiina ilaahay ha ka miro dhaliyo tii lagu liibaanana allah ka yeelo kolley haddii aanu nahay Australia kolley waxaa nala soo saaray dee isu tagii odaasha ay xalay isu tageen lacagihii la soo saaray Australia oo ahayd $4,000 kolley waa la bixinayaa hadduu ilaahay idmo waana lagu guda jiraa inkastoo dadka odayaasha sidii Daawud Maxamed Cadow iyo anigaba hadda aan Afrika joogno laakiin wicitaan badan iyo isxilqaan badan kolley hawshii waa la guda galahayaa waana la guda galay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo oo sida ugu dhaqsiyaha badan ilaahay lacagtaasi inoogu soo sahlo walaalaha xasan yaaqoob dhammaanna waxaan leenahay bal ilaa noo soo duceeyo ilaahay inuu noo fududeeyo arrintaasi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أنا نول با كل مال با لو أدي أما الله حل ساري إن شاء الله قلوي كربنا درايقنا إن شاء الله إلهي بسوس سهلية أنا واقع ذني وأنا شغال دون هدو إلهي رحدو إن شاء الله وفضاني ساعة walaalka Cabdullaahi Maxamed Xaajiga warkuu yiri uma noo dhaxanaga insha Allah kariim lacagtanaga waa diyaarinayna haddii alla yiraahdo 2 beri baan ku diyaarinayna haddii alla yiraahdo waana qaadanay lacagta 700 ah annaga reer Muqdisho waa hadalnay waa naga diyaar lacagta 700 haddii alla yiraahdo 2 beri gudahood waan qaadanay lacagta. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
waxaan aniga xoojinayaa inta soo hadashay hadalladoodii wanaagsanaa oo ku baaqaaya in gabadhaasi degdega gacan loogu fidiyo cadowga gacanteeda laga bixiyo insha allahu tacaala annagana kulleyba dadkeennan muqdisho joogaa waa u diyaar garownay waana bixinaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kuwa ku guulaysta inaan noqon doonno oo gabadhaasna xorriyaddeeda maalinta u soo celiya annagu reer badaxa waa qaadanay wixinu lagu soo qoray ilaahay ha noo soo fududeeyo waana keenaynaa in alle intii gabadhaas u diirnaxdana ilaahay subxaana watacaala ha u shafeeco waa mahadsantihiin annaga reer doolow muxuu ahaa waa soo dhaweynaynaa fikirkan marka koowaad waxaa naga xanuunsan oday aadan madooba shalay iyo daraad iyo maantaba muxuu ahaa waa diyaaran u nahay wixii fikir iyo tale iyo tusaale iyo soo jeedin iyo wixii nala saarayna oo qayim ana waa qaadanay waana mahadsantihiin haddii dhowr jeer ay soo noqotay reer doolow warkiina hala helo warkanaga waa cadyahay waxaad noo soo jeediseen ee khayrka ahaana waa qaadanay adinkana allah idiin fududeeyo hawshad haysaan salaan kadib waan arkay shaxda meesha lasoo dhigay odayaashu waa is aragnay xasan buubuulo iyo eris mataan haddee odayaasha kolley waana isla qaadanay arrinkaas asaga ah ayagana way soo hadli doonaan haddii ilaahay yidhaaha lacagta nagula soo qoray waan soo bixinaynaa insha allah waan soo dadaalaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo marka waan qaadanay waana insalaamaya in badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga hadda 4 qowsa meeshaan South Africa aan ku nahay waan ku yarnahay wallaahi dadku waa ka noqdeen wadanka reer South Africa la soo leeyahay jaalid South Africa la soo leeyahay laakiin insha Allah waa dadaalaynaa inta dadaal karna waa dadaalaynaa insha Allah bidnillaahi kariim